haddii dabinkaasi aad ku dhacdo aad u samayso waxaasi ma waxaad u malaynaysaa in qofkan uu kula sii joogayo in qofkan uu ku fikirayo inuu mustaqbal kula yeesho waxaasi oo dhan waxay ka bilaabmaan albaab yar oo aad adiga afurtay ma isweydiisay mar waxa ugu badan ee la soo qarxiyo maxay gabdho u yihiin xitaa habar waaweyn ku jiro miya laga caqli badiyay ani maanta raga ahay oo shukaan sadaray hay asxaab waxaan ahay maxamed buhari muuqaalkan waan idin hor fadhiyaa waxaana idin keenay facekayga maybe in dad badan aysan aqoonin kuwa kalena ay u arkeen shortiska ama maybe tiktok oo isticmaalaya oo muuqaalaha halka dhigaya laakiin uma badni halka muuqaalkani waxa aan rabaa sida ciwaanka aad kaga soo aragtay inaan kaga hadlo sidee gabadhu ay ku garanaysaa ninka ka doonaya mustaqbal waxaan ku weydiinayaa su'aashan gabadhay ma waxa aad tahay gabadha nin kasta mise waxa aad tahay gabadha hal qof maanta waan aragnaa waxa ka socda baraha social media gabdhuhu waa kuwa ugu badan ee la soo qarxiyo waa kuwa ugu badan ee la fadeexeeyo iyagoo loogu soo gambanayo jacaylka mar ayaa isweydiiyaa gabadhu ma garan karta miyaa qofka ka doonaya mustaqbal iyo qofka aanan ka doonaynin ma gabadha ayaa isdhigta booska liidashada mise waa la dhigaa mise jacaylka loogu soo gambanaya ayaa ka dhigaya qof liita oo daciif ah oo aanan ka falcelin karin waxyaabaha qaar haddii aan daawano tiktok ama meelaha qaar ee lasoo dhigo filmaanta anshaxa waxa ugu badan ee lasoo qarxiyo waa gabar sababtuna waxa ay ku dhacdaa inay daciif yihiin laguna faa'iidaystay jacaylka ay u qabaan qofkaasi mar dambe kuma wareeri doontid waxaana kugu soo gudbinayaa muuqaalkan sidee aad ku garanaysaa in wiilkan uu si saxsan uu kuu doonaya maxayna tahay calaamadaha aad ku garanayso calaamada koowaad ee aad ku garanayso ninka kaa doonaya mustaqbal waxa ay tahay ma ahan qof one chance one goal marka qofkan jaanis uu kugu helo kulma soo galayo gacmaha kuguma bilaabayo inuu kugu qasbo wax aadan rabin oo samay kuma dhahayo ama itusi ama sidan samay kuma dhahayo haddii marka qaar aad ka diido ay dhici karto inuu ku xoogo waa haddii meesha ay tahay gurigiisa ama hotel aad ku wada balanteen waxa kaliya uu kugu raadinayo waa fursad uu jirkaaga ku taaban lahaa ama uu kugu isticmaali lahaa kadibna uu cirka kuu fiirinayo waxaad u garanaysaa dadka noocani ah way degdeg badan yihiin kulmo badan ayay kaa codsanayaan inay kula kulmaan waxay ku dhahayaan kaalime heble ugu imow haddii aad diidana way xanaaqayaan si lagaaga tagana waxay kaaga dhigayaan cudurdaar inaadan jeclayn in aadan ku kalsoonayn inaadan aaminayninba qofkan wuxuu ku dhahayaa maxaadan ii aaminaynin ani maxaadan igu kalsoonayn ima jeclayd miya adigana waxaa laga yaabaa inaad beer jeclaanaato aad dhahdo waan ku jeclahay waan kuu samaynayaa waan kuu imaanayaa hadaladani qofkani waxay u furaysaa albaabka waxa uu rabay adigana doohana ayaa tahay waa lagaga faa'iidaysanayaa jacaylka lagugu beeray haddii dabinkaasi aad ku dhacdo aad u samayso waxaasi ma waxaad u malaynaysaa in qofkan uu kula sii joogayo in qofkan uu ku fikirayo inuu mustaqbal kula yeesho may maskaxdiisa ugu bedelayaa qof kasta oo rag ah waxa uu rabaa gabar uusan taabanin inta uusan guursanin haddii qofkani uu marba ku taabto ama uu ku isticmaalo wuxuu kuu malaynayaa maskaxdiisa kusoo degdegaysa ama kusoo dhacaysa in qof kasta uu sida kuu isticmaalo shakiya meesha ka dhalanayo kadibna wuxuu dhahayaa qofkani oo qof kasta uu galo ani sidee mustaqbal uga dhiganaya sidee caruurteeda hooyada u noqonaysaa yaa mustaqbal aanta isku dhigay waa adiga ka fogow ragga noocani oo kala noqo gabar go'aan leh haddii lagugu soo xadgudbayo aad aragtana ku dheh lagu soo xadgudbin calaamad labaad ee qofkan aad ku garanayso waxay tahay ku xishmaynayaa xishmada iyo qadarinta waa astaamaha lagu garto in qofkan uu ku jecel yahay qofkan hadduusan ku xishmaynaynin waa simbal isaga tag qof aanan la xishmaynin lama jecla haddii qofkan uu ku xishmaynayo uu kuu dulqaadanayo waxaad rabto uu kuu samaynayo uu ku jecel yahay waayo dadku waxay ku wada dhaqmaan waa xushmad iyo qadarin qofka ku jecel mustaqbalka kaa leh wuu ku xishmaynayaa kuna qadarinayaa dadkana uu kaga dugnaanaysaa calaamada saddexaad ee aad ku garanayso in qofkani mustaqbal uu kaa leeyahay waxa ay tahay shukaansigiinu uu xadidan yahay 24 saac kuma dhahayo ila sheekayso ila chatting garay kool ila saarnow marka sida aad ku socotana waxa uu ku dhihi doonaa aan arko meelaha qaar jirkaaga ka mid ah waa sababta dumar badan loo soo qarxiyay iyagoo qaaban iyagoo samaynaya wax xun ma taqaanaa sababta waxa batay koolkooda kadibna waxa soo galay waxyaabahani xunxun ee malayacniga ah sababta uu rabo in qofkani kool kula saarnaado maxay tahay jaanis kaliya uu gaadaya ma taqaanaa marka aad musqusha aadayso ee dhahdo waxaan rabaa musqusha inaad soo xaajo guto wuxuu dhahay mobilka qaado dhib ma lahan
سؤال ونكم قرسنا أي سؤال المستقبل كايا ماهي محد يجا بقيسا محد يجا حشونيسا هذه الوضع قبليسا مسوش أو قادانيسا وسو حاج جدانيسا وسو لابانيسا عادة يكون نقطين صح مرق الولاء هذه ساكولكا تقدم حق سو حكتمة خانا فيديو غفور أنكو أركو وحاسمينيسو هذا قبيسانيسو وحاسي أردن وحيكب اللامان الباب يرؤى ذي أفرتر الباب كاسير وحكو نقون دونا wax lagu banaysto ama lagu arko jirkaaga oo idil qofkan uu kaaga record gareysto video kadibna uu lacag dhaafsiisado sidaas uu kaaga taqaluso wuxuna raadin doonaa qof kale gabar kale uu sidaas u galo hadii maanta waxa ugu badan mis weydiisay mar waxa ugu badan ee la soo qarxiyo maxay gabdho u yihiin xitaa habar waaweyn ku jiro miya laga aqli badiyay war qofkan hadii lacagtu doono ku siinaayo kama dhigno inuu ku jecel yahay wuxuu ku bixin karaa ragga qofka ragga ay wuxuu ku bixin karaa lacag kasta oo double ah $100 $200 3 war in kasta ay ahaato ilaa $10,000 ku bixin karaa kaliya si uu galmo kula sameeyo isaga waxa uu dalan galmada oo kaliya wax kale uma darna adii waxaad xisaabsanaysaa lacagtan waxa leedahay ninkan uu ku qarsh gareynaya lacag buu ku siinaya mobile iPhone uu ku soo gadaya waxa si oo dhan ay ku xisaabsan yihiin ninkan xisaabta kaliya waxa ugu jirta hal habeen uu kula saaxido mar uu jirkaaga arko ama uu galmo kula sameeyo intaas uu xisaabsanaya danta ugu weyn uu leeyahay waa inta laakiin qofka mustaqbalka ka doonaya sidaas ma ahan shukaansigiisu waa xadidan yahay laga yaabo in subax uu ku weydiyo hay see soo kacday see tahay xaaladda caafimaad ka waran marka xoogay isdhaafstaan uu ku dhaho maalinta ku wacnaato dayzit soo habeenka soo qabataan kadibna xooyar aad yara sheekaystaan kadibna kala dhaco waayo qofkani jaanis ma bahayba oo qof shaqaysanaya nolosha hadaf kale raba inuu adigu guursado mustaqbal weyn kula dhiso caruurta hooyada u noqon doonto u shaqeeyo waxaas oo dhan ku fikiraya laakiin qofka kale ma la yacni 24 saac kol soo wada saarnaan kara ani marka qaar marka dadka ka arko statuska WhatsApp-ka 3 saacadood soo dhigay ama 4 saacadood soo dhigay ama 5 saacadood call soo dhigay ama 6 saacadood call soo dhigay waa la yaaba maxay wada hadlayeen qofka is jecelnahay haddii asbuuci oo dhan aanan wada hadlin kaliya weekendiga aan wada hadlayno maybe 3 saacadood gaarto laga yaabaa laakiin haddii habeenkaas aan wada hadlayno ma gaari karto intaas way ka yaraanaysaa waxa laga yaabaa inay la ekaato 1 saac oo kaliya kadibna dana kala yeesho ama wala saaxanayo qofka sabriish uu leeyahay haddii aan ku sheego oo si saxsan kula hadlo ani maanta raga ahay oo shukaan sadaray qofteedu waxa la hadlaa weekendiga oo kaliya inta kale message ku hadalnaa waan iga saxsan tahay oo waxaan ahay qof hadaf wacad oo wax u dadaalayo laakiin ka war haddii aan ahaan lahayn waxaan dhihi lahaa call kasta wax kasta rag oo dhan isku wada mid ma ahano qaar fiican way ku jiraan yaana idinku dirin laakiin gabar qiimahaaga halka aad dhigto ayuu yeelayaa calaamada afraad ee ninka danta ka leh aad ku garan karto waxa ay tahay danta uu ka leeyahay oo cadahay marka hore aad xiriirka bilaabaysaan ayuu si saxsan kula hadlayaa wuxuu ku leeyahay waan ku jecelahay waxaan ka rabaa inaan ku guursado ilmahayga hooyada ayaan ka rabaa inaan noqotid inta xiriirkeena uu socdo waan ku baranayaa dhaqamadeyna baranaynaa sida wada dhaqanno dabeecadahan baranaynaa haddii aan inta dabeecadeynu isfahmaan waan ku guursanayaa haddii aan isfahmi weyn waan kala tegaynaa wax dhib ah ma jirto hadalkiisu cad yahay danta uu ka rabo waad garanaysaa way qeexan tahay laakiin ma ahan haddii qofkan aad ku dhahdo maxay tahay danta ay rabto ay soo raadisay ama aad ila chatting gareynayso ama aad ila hadlayso waa ku jecelahay oo aan dhaafsiisanayn qof kasto sidaa ku dhigi kara qofkan oo ku jecelahay af kaliya xitaa aan ficil raacsiisanayn وانا كل هذا وردنت كلي عاد يقال لي هذا هاي عاد يسوع عني سيد إلى شاتين جريني سيد أرتينا وقتها أو استجريسو أقول له مسوم حيتاي وقتي على مكلا جاي ماذا وقتي على محاكو حاجة إنك جورس ده حدي قف كانوا كوسو هذا القادين شايف كوسابسن مستقبل يجور مركا كودا حل لسانا وكاجا جاب صدق هيوي وأنا كعرفت ماشي هو عرر قف ككلاء دور بديسيت سكسة ورجعلوها أقرح بالناظر مستقبل كيا كبر برية هالكان وقروح بدني هاي أنا جعل أنا أساس كربو ما أنت أودن بيسن قفك أو أنت أودن بيأيدون وهذيك وأنا احترامتها
qadarin isu yeeshaa oo aad naftaada siisaa qiimo. waa inay jirtaa waxyaabo aadan ka gorgortami karin. wallaahi baan idin sheegay gabdha, raggu way yaqaanaan gabadha aanan ka gortamin waxyaalaha qaar. iyagoo koolka ku wada hadlaya yaqaanaan waxyaalaha qaar kuma dhiiradaan inay weydiistaan oo ay dhahaan na tusi ama sidaas samay. seriously kuma dhiiradaan, way ka baqaan xitaa. uma dhaafaan keliya sheekada jacaylka intaasi. laakiin adiga maxaa lagugu dhiirday? maxaa waxa dhan lagugu dhahay? waxaa la arkay baahidaada badan, waxaa la arkay jacaylkaaga badan, waxaa la arkay naxariistaada badan, waxaa la arkay meelaha daciifkaad ka tahay. hadduu is xanaajiyo 2 maalin kaa maqnaado in adi araadinaysa la arkay inaadan ka ahaan karin. markuu arkay waxaasi oo dhan muxuu is dhahay? way kuu gashay yes. hadduu xaaladis ka samayso, hadday tahay uu kula kulmiyo ku isticmaali, hadday tahayna video call kaa soo wici si xaaladto intaasoo ku dhihi. waa sida hadda socda, yaanan ka xishoonin hadalka, aan si saxsan iskula hadalno. ani waxaan rabaa muuqaalkani aan soo duubayo videogan inuu caabiyo gabar kasta oo Soomaaliyeed anigoo ula hadlaya sida in walaashii ay tahay. xitaa laga yaabo in muuqaalkan ay daawan doonto gabadha aan dhalo oo aan u daari doonaa aan u shidi doonaan dhii doono dhageyso. waxaan kula hadlaya maalinkii aan dhalinyarada aan ahaa ee caqliga xooga aan qabay, sidaan gabar kasta ugu diidanaa inay xumaana ku dhacdo ama qiimaheedu hooseeyo. gabar adaa iska dhigi karaa boqorad sanka taagaysa, ragguna ay ka daba jiitamaan ama iyay mise aymaan dhahaa dhulka jiifa oo ay kumanaan iyay ama wax raba inay cunaan. labadaas uma u dhaxaysaa. adduunka hadafka yeelo, naag adag iska dhig. fadlan waxaan kaa codsanayaa in muuqaalkani meel dheer aad ila gaarsiiso. waxaan rabaa gabar kasta oo Soomaaliyeed muuqaalkani ay daawato si cashar uga barato